warshada sibidhka ee ku taala magaalo xeebeedda Berbera ayaa la bilaabay hindisaheeda sanadihii 1974 balse waxa dhismaheeda si toos ah loo hirgeliyay sanadii 1978 dib u dhacaasi ku yimi ay la xidhiidhay meesha warshada laga dhisayay oo kayn badani ku taalay waxaana iska kaashaday dhismaha warshadani dawladda waddanka ka talinaysay waqtigaasi ee Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi oo ay Soomaaliya ka codsatay inay ka caawiyaan xagga farsamada halka Soomaaliyana ay sheegtay inay shaqaalaha bixinayso shidaalkana bixinayso gaadiidkana bixinayso muddo kadib jiitan badan oo ku yimi warshadaasi waxa ay Soomaaliya go'aansatay inay erido shirkadii ka socotay Kuuriyada Waqooyi ee dhisaysay warshadaasi Cali Injineer waxa uu kamid ahaa dadkii budhiga u ahaa warshadaasi waxaana uu tibaaxay haddaba nimankii Kuuriyaanka markay 8 sano joogeen 8 sano markaa runtii ana meesha yimi waan qiimeeyay gaar markaa nimankii Kuuriyaanka in la eriyo oo cid kale lagu bedelo oo waxa noo dhisi karta kadibna laba shirkadood oo Faransiisa oo midna maxay dhismaha inay samayso training ama tababarka sanadihii 1987 ayaana ay warshadani soo saartay kiishkii ugu horeeyay ee sibidha waxaana ay Soomaaliya ka maarantay sibidhkii uga iman jiray waddanka dibadiisa nasiib darro warshadani ayaa burbur xoogani ka soo gaadhay dagaaladii dalka ka dhacay 80-aadkii dawladda Somaliland ayaana jirtay muddo 27 sano ah taasi oo aan waxba ka qaban warshadaasi kuna guul daraysatay dhismaheeda oo waqtigan la dhitinaysa xaalado burbur wasiirkii hore ee ganacsiga ee xukuumadda madaxweyne Siilaanya ayaa qiray isla markaasina dul istaagay in dalka ay ka baxdo lacag adag oo wax badan u tari lahayd isla markaasina sibidh badan uu dibadda inooga yimaado waqtigani dhanka kale ganacsatada keenta sibidhka dalka ayaa daboolka ka qaaday xaddiga lacageed ee kaga baxa sibidhka waxaan u maleynayaa bishan August waa markabkii saddexaad ee sibidh ay yimaado waxa weeyaan waxa saddexda markab ama afar markab markay bishii timaadeen la isku daro waa $10 million lacag u dhow ayaa sibidh ku soo iibsanaa laga yaabaa bil walba taasi waxay inagu dhiirigelinaysaa inaynu lacagta adag ee faraha badan ee naga baxda sibidhka aynu ka faa'iideyno oo aynu isticmaalo iskicino warshadeenna sibidhka isku soo wada duuba warshadani ayaa dadka Somaliland badi qabaan haddii ay dawladda Somaliland kicin lahayd inay dad badan oo shaqo u samayn lahayd geesta kale sibidh badan oo dibadda inooga yimaada lagaga raysan lahaa maxaa uga yaala xukuumadda hadda talada haysa ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi maadaama waqtigan sibidhka ugu badan ee lagu dhiso madaarka Berbera laga keeno waddanka dibadiisa geesta kale saddexdii shirkadood ee qaatay warshada sibidhka ee Berbera inay dhisayaan xagee ayay ku dambeeyeen ee kala ahaa Saaxil Group Dahabshiil Group iyo ganacsade walibana ka socday dalka Kuwait Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalo xeebeedda Berbera